رحمة الله وبركاته. مرك هراء الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما أنت هو مالوي ومالين كقالي قرنك ومالين حسوستنا قلبك هو الحسن ومالين قلبينا كل حسن ومالين بقلال يوم نام كنا يوسف شهيدين سيدي أيو سماي لهاي نبضنا ما أنت حرصنا إنه وتمان تانا كنا يكفر إنه يعني شغل من maalintaas waa maalin qarankeena ku suntan intii soo aragtay baa garanaysa laakiin anagu waxaan ahayn loodkii dambe runtii soo gaadhay raadadkii uu ka tagay dagaalku oo dhulka aan ugu nimid maxay ahayd guryaha oo burbursan aan ku garaadaysanay iskuulada oo aan jirin waxbarashada oo aan jirin maantana alxamdulillah 30 sano waxaan taaganahay guul iyo nabad iyo maxay ahayd barwaaqo waqtiga 30 sano ka hor waxaan anigu dhalinyartii dhowrayskaashamaadkii iskuulkan imka agteena ee secondary-ga ka galay ulada runtii muu lahayn jiingad maxay ahayd kuraasmay jirin waxaan kuraasta ka dhigin jirnay daasada caanaha oo loo jiray in walba kursigiisa soo qaato buugta wax lagu dhiganayo ma haysan dadku dharka ay xiranayaan ee quruxda imka la xirayaan ma haysan kaba ma haysan runtii waqti aad u adag buu ahaa oo haddana inta dagaalo sokeeye iyo dagaalo sokeeye la isjiijiidayay oo nabadgelyadu ay aad u liidatay oo marna iskuulka laga yaacay marna la isugu imanayay maantana waxaan maraynaa alxamdulillah rabbil caalamiin in iskuuladii ay dhiganayaan oo nin aan maanta iskuul dhiganaynin daadu doona hal ay ka aanu jirin horumar weyn aanu qabno jaamacadaha aynu dhiganayno oo aynan dibad u baahnayn in aynu jaamacad ka soo dhigano oo nin walba magaaladiisii uu ku helayo oo nabadgelyadeeni ay tahay nabadgelyo taama waxaanan dhammaan bulshada u soo jeedin lahaa oo nabadgelyada ay ilaashadaan nabadgelyadaasi waa nabadgelyo qaaliya waxa dareemaya maanta inagu ma dareemayno dadkeena imika jooga laakiin waxa dareemaya wadamada jaarkeena sida Soomaaliya oo kala oo adduunku malaayiin iyo balaayiin dollar ku kharash gareeyo sidii uu nabadda uga dhigi lahaa mid salka cagaha u dhigta inta shirar loo qabanayo haddana aan haysan nabadgelyo maxay ahayd kuwaas dareemaya runtii oo maanta waxay marayaan iyagu sidaan u helnaa nabad sidaan u helnaa maxay ahayd sidaa de Soomaaliland ay nabadda u haystaan ay maanta ka fikirayaan inaguna waxaan maraynaa maanta xili aynu horumar haysano runtii waxa naga dhiman wax weyn maaha waxaan la yiraahdaa aqoonsiguna wax weeyeen inaga ma maqnaa laakiin inaga ayaa aqoonsiga wax weeyeen ka dhignay runtii waxa naga maqan in shirkadaha caalamiga ay maalgashi ku sameeyaan Soomaaliland ama ay baananka caalamiga la xiriirno oo aan deymaha iyo waxa ka soo qaadano laakiin horumar weyn baan haysanaa oo maanta kaga maarmi karno marka waxaan leeyahay in nabad ah la ilaashado qof walba nabad ah ilaaliyo nabad baa naas la dhugale nabadda aynu ku dadaalno aynu ka qayb qaadano sidii aynu iskaga ilaalin lahayd waxyaabaha qaranka antaaqada u keenaya ay ka mid tahay hadallada qalabsan siyaasadda waxaana nagu soo dhow xilligii doorashadaas iyo doorasho aad u xasaasiya maxay ahayd waxa la doonayaa in nabadgelyada la ilaaliyo oo qof walba halku joogo nabadgelyadiisa ku ilaaliyo oo qarankiisa la shaqeeyo siyaasiyiintana waxaan soo jeedin lahaa inay inta campaign ku bilaabmaya campaign lagu jiro ay iska ilaaliyaan hadallada xanafta hadallada qaranka wax yeeli kara hadallada keeni kara isku dhaca waayo xildhibaanadu waxay haystaan population badan oo runtii shucuurta dadka kicin kara marka waxaan soo jeedin lahaa qof walba inuu nabadda ilaaliyo ay nabadeena wada ilaashano taas aan ku soo gabagabin lahaa dhamaantiin waan salaamayaa dumar iyo rag iyo madax iyo cid kasta oo ka soo qayb gashay iyo cid kasta oo xafladda soo qaabqaabsana waan mahadnaqaynaa waxaan ku soo gabagabinayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh